Safiya waa tuma Safiya waa hooyo Soomaaliyeed marka fanka iyo laga tagaday waxaan ahay hooyanimadaas baa ii dheer tusmo ma markii aad fanka ku soo biirtay ayuu magacan tusmo ku baxay horta maya tusmo waa magac ilaa igu waqlalay yani markaan dhashay Safiya jacaylka iyo nolosha maxaad ka aaminsantahay adigu jacaylka waxaan aaminsanahay inuu yahay kers sababtuna maxay tahay inuu nasiibo yahay aniga waxaan ahay dadka ugu baad la kisan ugu nasiibka xun markay jacayl noqoto ayaan ahay marka jacaylka wax xun baan ka aaminsanahay dhibaatooyin kala soo darsay ilaa xad kuwii laba bay nooga taaban kartaa si ay bulshadu uga cibro qaataan waligay horta anu qof ma jeclaa oo intaan qof jeclaaday arji u qortay amba aan kaga horeeyay oo jacaylan la wadaagay ma jirto laakiin mid la ila yimi oo daqbashay oo marka dambana dee waxa weeyaan sa tareenka idul mara bay ugu soo badnaa dadku waxay aaminsan yihiin jacaylku waa one time hal mar wada jeclaan kartaa waxa kale waa xiiso laakiin ma jirtaa taasi marka imse jarbu qofku awoodi leeyahay wax jeclaan wallahi intuu doono waxa weeyaan horta jacaylku waa labo mid waa mid aan guurino waa midka adiga ilmahaaga iyo adiga waalidkaaga idinka dhaxeeya midna waa mid adiga iyo partnerkaaga qof aan baad isguursateen aan baad shuka isku idin dhexmar daadis kan ka hadlayna waa kaas dabcan adeed kan kale waxa weeyaan waaba barmado mid meel u socdo mana dego mana socdo adiga hooyada iyo adiga ilmahaaga halkii uu taagay dabcan kan kale laakiin waxa weeyaan kulito aniga dhibaatooyin badan baa iga soo gaaray ilaa yaraanteedii bari baa waxaan xasuustaa waan dambaabo waxaan iri ani horta fihimay ninka ugu horeeyay guursaday walaalkaabo dadku horta ma ogeeyno walaalkay qabi jir laakiin maanta waan qarxinaya inaad egas damaashiday tahay adii laftirkaaga qof baad ku soo nolol inta nin aan nolol soo wadaagay iyaga soo doontay ilaahay amarkii maanta nasiibkaygu aniga sidoo yahay macnaha dadku qof walba wuxuu rabo iska camirtaa laakiin tusmo markay jacayl noqoto I have the worst luck jacaylka qofka ugu nasiib xun baan ahay I don't think qof iga nasiib xun inuu jiro today halkan baan joognaa magaalada Hargeysa waxa jira dad darbi jiifa sax oo halka homeless ku ah waxa laga yaabaa wiil halka 25 sano fadhiyay maanta intaan baxo on bartaas tago 25 years nin halka fadhiyay haddana intaan soo qaado andar radiyo oo nadiifiyo oo ninka dhigo tushan iyo 20 ka sanadood ba halka ku mareysay wax isku yihiin halka uu ku ag mari jirtay oo ku dhaafaysay ba walaal iga daba imanaysa that is my luck I don't know why and marka su'aashaadi weydiisay anigu jacaylka waxaan ka aaminsanahay wax xun ma jiraan saddex shay oo aad samaysay oo aanad ka qoomamayn saddex shay oo sameeyay oo aan ka qoomamay wajira waa maxayna ma noo sheegi kartaa aniga daawadayaasha waxa kamid ah inaan soo safray oo halkan imi kama qoomamaynayo wax badan ma ka faa'iido dabcan waxaan kamid ah inaan furid dalbaday oo la ifuray kama qoomamay takala saddexaad baraayfad ma doonayaan dadka maqan goodness dad badan baan u mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Hinda Cado Shaare gabadhii nafteedu dhigtay thank you enough marmar ma aha ma noqoto sida aanay sorry oo noqon nabar u bogsiin bayna thank you no maadaragtay wax u weyneen waxaan u mahad celinayaa asxaabtayda oo haya joogta carruurtayda iga warhaya daily gurigayga taga ilmahayga ma aragtay booqda iga warhaya walow ilmahayga hadda ay qaar oo dhaltay inuu iyagu is hayaan haddana hablo iyo waxa jira asxaab iyo si gaar ah oo maalin walba u taga saaxiibadii Safiidiina u horeyso Safiya Habane asxaabtaydii reer Columbus oo dhan ayaan u mahad celinayaa markay mahad noqoto dhamaan waxaan salaamayaa Soomaaliya oo dhan ma salaamayaa ummadda Soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga taqaanaan salaamayaa walaalahay iyo carruurtaydii oo
أنا آمن سنة إنا وينير كسو مقنا من كسو تجي أنا وليبا وقصو تجي رون ريزن أنا وقصو تجي بان على كردون كان يعود وحن هيستا والأوتيزم من هيستا أو ما ركتي هادو يريد أفرو أن سوقلي وركوسو نقونيني بس كإن لقديش يولو تجداد أي تايو جروجي هدي زمالي درس لما هي هدي بس كمركا ويمادو أنا لو تاجنانين دي أي جلدنا سيرفيس أوجي كران أنا أون كسوتكي أون قلت وكسوتكي أيان هو ذاك الركنية أنا waxaan salaamayaa wiilkayga aabihii Cabdi Nuur Daljir oo inankaygi maalin walba ilmihiisa booqdo gurigaygii mar walba tago carruurtaydii ka warhaya u mahad celinaya waxaan salaamayaa qof kasta oo sirtayda iyo situationkayga og oo haddana isku kib gareeya iyagu qarin kara sirtayda ayaan salaamayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fool haday timaado guda qarsiima hadhe mar baa waxa ku qabsanaya wax ka weyn oo nad ma daragtay adigu handal gareyn karin asxaabta ila handal gareysa ma daragtay especially hawlaha qaarkood oo ma daragtay labadii sano hadda sanadkan kasoo gudubnay iyo sanadkan garab taagna waan u mahad celinaya aad fahimay haddii hub inta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro waad isdifaaci kartaa waad dagaalami kartaa waad dad baad u yeedhan kartaa iyo dariskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax kuu soo gurmada ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxa maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi karaa it was live in hell marka si you know dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dul qaadan karaan maanta ma rabo inaan taabto this actually the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan ahayn qof muslina haddaanan ahayn qof lagu soo koriyey dhaqan iyo diin haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo maaragtay qof weyna I would go crazy or lose my mind waxay qabsaday waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda i garab taagan waxaa laga yaabaa sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin oo anu dareemayo aan maaragtay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa in the same time-na waxaa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto dadka slave-ka ah ee America waxaa jiri jiray dad adooma ah si qaldan baa loo diri jiray qofka waxaa la saari jiray faras baa lagu fadhiisin jiray xadhig baa qoorta loo suri jiro geedka ka soo laalaado qofka noloshiisa waxa ka hadhay inta farasku dhaqaaqayo faraskaasi hadduu dhaqaaqo meydkiisa warfanaya I don't want to go deep ma rabo inaan galo laakiin last 2 years I was sitting on that horse faraskaas baan ku taagnaa my life can be shattered like you know sida galaaska inuu u jabo ayaan in yar u taagnaa ilaa haddana u taagnahay I don't know xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono laakiin I had a difficult time baan soo maray ilaa haddana difficult time baa saaran I was hiding for a long time but I don't think inaan isku kib gareeyo is not helping me
waxyaalo waxaa jira aanad even your best friend kala hadli karin aanad kala hadli karin walaalka hooyada iyo aabaha aanad kala hadli karin waa adig ku gaara saan horeba u sheegay ma dhaadhici karo ma taaban karo point laakiin just waxaan u mahad celinayaa dadka i garab taagan sirtayda og iyagu isku kibgareeya qariya iga warhaya maxaan ku idhaahdaa micnaha walow aanay waxbaba iiga qaban karin haddana isiiya encouragement isiiya yidhaahda you gonna survive you gonna waad ka bixi doontaa waxaan iska dhammaanayaa calool adayg ayaan mahad celinayaa dhammaantood wiilal iyo gabdhaba